codkeeda kor loo qaadayo waa aragtaa David Cameron baa soo toosay arrimahan hadday saa usii socdaan mid waa kula qaba hadday arrimahan saa usii socdaan tan imika labada wadani raba Ingiriiska iyo reer Yurub ay rabaan labadii wadan ee 60kii midoobay inay midoobaan hadday Soomaalidu caqliga qaadan weydo iga qoraniga hadday Soomaalidu caqliga aqbaleydo taariikhda Soomaaliland dafiraan ay yiraahdaan Soomaaliland waxa la yiraahdaa ma jirin hadday soo ku socdaan Soomaaliland dal gaar ah noqonaysa iga qorani Soomaaliland dal gaar ah noqonaysa aqoonsigana waa la aqoonsanaya kaliya haddaad caqliga ku socotaan dafirtaan history markaad dafiraysaan history adduunkooda ogyahay Soomaaliland inay la midoobay Soomaaliya markaad dafiraysaan oo saa ku socotaan adduunkiina xaaladiisa isbedeshay Soomaaliland meel istiraatiijiga ku taalo in lagala hoos baxo waa qasab ay noqonaysaa in Soomaaliland lagala hoos baxo qasab ay noqonaysaa marka reer koonfureed caqli keena wuxuu yahay waa historyga dadka hadda firina in dadka idin yimaadeen 60kii la moodeen Ingiriis ka yimaadeen Ingiriis cadaan imka soo kacay Soomaaliya ka mas'uul ah Soomaaliya arrimaha Ingiriis ka mas'uul hubka iibsanaysa ninka jagareynaya waa Ingiriis Soomaaliya hubba laga qaaday cunaqabataynta ya iskariin ku sameeyay hubaan Ingiriiska laga iibsan hubka kale waa Ingiriis soo maraysa waa warqada Ingiriis oo xasan shaqaado yiraahdo ugu qaasa badan haga soo iibsadaan I am checking up maxaa ku jira hubka qaadanaysa weli ma hubka cunaqabataynta ma wada qaadna weli control ba ku jirta ana khriya Somaliland way burburtay ugu ما يروح حساس عليها سؤال ما بربرس وهيستوري ما بربرس أنا هذا وحنا وهيستوري تري إلى إنجليز كسر بحال إن آخر ما حنا قريسها أو عمره عادوا بالسومال لا كسر قريسها هذه الناس عرض سومال والبي سومال أنا always بي سومال وهذا قرشها نوات الله وضع ريما وريما هي وحويان هدف كلا ربو أي وضع والدمضني هذه دولة حمر أي حق نص عطو والفرديد كانوا هاتو الفرديد كانوا هاتو والسيدان سكو حيثتو ودنا ودقاق ويدو أي نقطة أولكي مع سرادة الشيدي يساعد سكو ميريسيني نقطة السومال اللي دوكو الدبر كو حين ماي وين السومال لا ادوك aqoonsado way imanaysa marka ina idinku aqli keen weydaan oo kala roonaan weydaan oo nidaamyo dawlad dhisan weydaan oo saa iskugu dhagaxnaa isku dhagarataan iyo ina Soomaaliya halka noo fadhido reer koonfureed labada aqli mid keeno reer koonfureed labada aqli mid door keena Soomaaliya halka noo fadhido anagu xiniyaa iska wada qaniinayna oo wada haysanaa سأعقل ونقول سأدوك هو اللي جيت بس عنا تاس بس عنا سنة هذا لكن Somaliland أكتب كورة قبل Somaliland أدي السعودية the two states سيقول سكوي ماذا not like لحنكي الشيء لو ده يهسكوي ماذا وح Somaliland والقايسة dal gaar ay noqonaysa waa aragtaa imika ifraalo soo socda Ethiopia taageeraysa Ingiriis baa taageeri bit by loo taageeri wadan hadday mar albaab ku furmo Soomaaliya waxba kama qaban karto marka talada reer koonfureedka siinay waxa weeye war maanta waqti jooga dulmigana waxa kamid ah anigu runta sheega history jiray dal Ingiriis ka xoogobay oo jiray in dadkan laba simo ama Jubbaland laba simo that is waxa way great mistake way for history
waa historically maaragtay mistake Soomaalidu samaynayso 19 meelo la yabyabay koonfurta waa inay aaminaan in ayagu koonfureed yihiin nimankana waqooyi haayeen waqooyi wuu ishaysan karaa koonfurba way haysataan iminka waqooyi way haystaan nimankan sool niman kale ku dhagan yihiin koonfurta ma heshiis baabtay koonfurta ma heshiis baa soo koos wal haystay 30 sano ay haystaan 30 sano badana u kala dhaqaaqi lahayn 30 sano ay haystaan marka dhulbaanta go'ay dhulbaanta halka joogay waa dhulbaanta Soomaaliya ma haystaan idiga Puntland ma haystaan koonfurta Puntland ma haystaan what's different marka anu xalaat taraafka Soomaaliya maanta meel uu ka dhow yahay ma jirto hadday san wax u socdaan situation Soomaaliya sidan haado Soomaaliduna maskax kale keeni weydo taraafka Soomaaliya meel uu mar uu ka dhow yahay ma jirto Ingiriis adaa noo jooga ninkii calanka gobolnimada siyaa jooga ninkiiba Soomaaliya dhan ka mas'uula kiiba Soomaaliya Al-Xasan Sheekh ka mas'uula Al-Xasan Sheekh joos kale ma haysa ama kala imanaya joos kale ama in Soomaaliya la isku keeno two state kii isku hadalka ka degay walaba wadan oo Tanzania kale iyo maxay Zanzibar oo kale noqdo history loo yahay la yeelo haddaan hayn Soomaaliya be free I will be wadan igaad ku jiray noqonaysa taasi waa run awtaas qaba marka reerka kale si qolkii ku noo duulaya Soomaaliya sabuurada waan arkaya sabuurada waan arkaya mar alla marka saala ilaa Soomaaliland ba xornimo noqonaysa dhakana keeni maayo bal marka koonfurta ku fiirso aqlina keeni maayo waxay rabaa in halka loo yuuro oo halka loogu xidhnaado iyaguna sida ayga waraabaha iscunaan sida ayga waraabaha iscunaan afar iscunayaan de waxaad aqli ma noqoto koonfureedu ama dad heshiiyo dawladda isto nidaam oo shaqeynaya la yimaada noqdo ama waxa noqotaan dad aan loo xidhnaanay ma noqonaysaan ma waxa maalmood ay noqonaysaa sidii furolo kale furole iyo nimanka koonfureedku dabeecadey wadaagaan furolo waxa haysta garow 2 ufiirso Puntland kitaabka yar bahaysata garow 2 nimanka kale koonfureedkuna aqoonsigii baan haysanaa wuxuu dhow aqoonsigii baan haysanaa anaga aqoonsiga haysanaa jamaacada qurbaanka dhacsan fadhina hay kana waa garow 2 waxaas mid ma gaaraya soo qabsada gabadhooda maxay haystaa marka